kale kolkan ku dhagaysta keligaabaan kugu dhammaysta oo kusoo dhawaysta ku dhowrta sharmo kugu dharta kii ku dhiba darbaaxa kii ku dhiba darbaaxa hadduu dhacaya aroskeena dhawaan baan dhigaya dadkoo dhan wuu noo kacaya maanka macaan waan ku dhaqaya horta aniga milyan si sharaf leh aan isu guursanay maantana si sharaf leh ku kala tagnay waliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas ay soo bixin ka hor aan ayada kala dhamaanay laakiin arrinkeena social media ma keenin haddana daruuri way ila noqotay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي هوري ور سوداف وركي هوري ور سوداف شرما كعبد ناصر شرما بوي ويلكي وينا إلهي با وينا فنانكي عانكا ها براها بلشدا الرحي أين وذوقين أيا وحو دعوة كيهي صاحبكيس اسمه نقدر عنك من وين عالم غيبنا منه أفكي سنة كما هينو لكن دتك وحي إسلام دحمريان أو أي إسو شيء نينكاس إنه يهي مصلح بداية من رمضان بالو شراه حالك الله أعلم لكن سيدا دتك أولا شيء كذا أي أبدينيان صور هذا أي سوقاتين مركينو فيرن أو إلى أرك دونتان waxay leeyihiin odagii waa lagu yaacay odagii shirboy ahaa waa lagu yaacay baa laleeyahay kani wuu adkaysan waayey barnaamijkaas wax noocaas isdhex maraya waxaan rabaa inaanu isla daawanno sharmaaka cabdinaasir sharma boy oo afka furtay xalay si live ah tiktok oo isagoo ka dacwoonaya in gabadhiisii xaaskiisii waa loo daba maray ninka ragga ah meelo aan laga marin baa jira hayaay xaasaska la iskaba maro dil iskaba daaye dad baa ku geeriyooda tiro badan waayahay ninkani yuu noqon doonaa su-aasha saddex taalla ninkan saaxiibkiisa ee uu noo sheegi doono yuu noqon doonaa waxaas iyo macluumaadkaas oo dhan baynu idila wadaagi doonaa ninkaa qofka uu kula yahay uu noqon karana komitiga noogu soo qor waaye gudahan u galaynaa waynu daawan doonaa ma waxaan idin sheegayaa aniga saaxiibkii igu dhawaa dad saaxiibkii igu dhawaa inuu ikhayaanay dad saaxiibkii igu dhawaa baa ikhayaamay subxaan allah saaxiibka marna waa sadkaa baa layidhi marna waa hee siriqda marna waa sadkaayo si wanaagsan buu kula dhaqmaa marna waa siriqdaayo asagaaba lagugu qabtaa oo lagugu dhibaateeyaa والله أنا سيداو بسم الله وليبا سحن أو إقياني وليبا سحن بو إقيان قفا ديق درج سو قري ديق درج معهم ديق درج وساحب ليش إنه كسرنا مركز ديق درج وساحب كيس وأجنا بس لسه عايشين لكن يوسي أفعد وحوير ما أهان ديق درج ويرك يوتيوب أو هينجري دكنا نيروبي ساعات عتاد حسستان لكن وحوير ما أهان ديق درج وساحب كيجا weligiis xumaan iyo mageysanin wax dhib ah kama tabanayo laakiin asxaab nin shaqo ayna wada dhexmartay saaxiibtinimo ayna dhexmartay wanaag iyo walaalnimo uu naga dhexeeyey baa si xun ee gale si xun oo nin rag aan laga filanayna buu ii galay laakiin waxaa xanuun igu hayso oo aan u qaadan waayey oo la yaab igu noqotay weliba dee xanuun aad bay ii xanuujinaysaa aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad bay ii xanuujinaysaa ma fahanteen qof hadduu ku xumeeyo aad ka tegi kartidaa jiro qof hadduu ku xumeeyo mataqaanaa qof hadduu ku xumeeyo aad ka sabri kartidaa jiro waxba xanuun aan kugu reebeynin laakiin aan ka tashanayso laakiin markii qof aadan ka filanaynin ama saaxiibkaaga ah weliba saaxiib aan ka hadlayaa markuu ku khayaano kuu sameeyo weliba saaxiib aa isla soo ceeshteen oo ceesh idinka dhexeeyey
mataqaanaa oo caanimo raadinayo oo dee nin mataqaanaa fanis ay ku xiran yihiin baan ahay taageero ijecel baan haystaa dad ijecel baan haystaa anigu nin caanimo raadinaya ma ahi buu yidhi intaas oo malyan baa i daawata laakiin dhib i haysta ayaan meesha la soo fadhiistay tee nin views u baahanna maanta ma iyo views inuu raadiyo oo heesayga 10 milyan iyo 11 milyan iyo 9 milyan iyo fanaaniinta Soomaaliya ugu viewska badan baan ka mid ahay oo maanta views uma baahna qofna views kuma raadinayo laakiin waxa idin sheegaya in saaxiib ah oo ceesh naga dhaxeeyay wax walbana dhaxmaray walaaltinimo iyo wanaag naga dhaxeeyay anigu ceeshka qiimeeya ma aqaan dadka qaar sayeen I don't care laakiin aniga nig saaxiibka waxa ku qiimeeya ceesh doona soo dhaxmaray oo hal meel aan soo wada seexanay oo mataqaanaa dhereg iyo gaajaba aan isla soo aragnay waxa waaye danigaas saaxiib lillahi haddana waxa ii soo baxday asxaabteyda faniskeyga inaan waqti la qaato oo aan u sheego mataqaanaa inuu jirka i gubanayo oo zaid weliba uu ii gubanayo ma fahanteen midaada kale haddii aad u malaysaan dadka social media ku jiro asxaabta oo barnaamijyada waxaas isla dhigo oo mataqaanaa isla soo heesa hadday rabaan barnaamij mataqaanaa isla soo heesa hadday rabaan barnaamij mataqaanaa isla soo heesa hadday rabaan barnaamij aragtaan oo isla jooga oo saaxiib wax wada cunaya oo social media ku wada jira oo isla soo mataqaanaa isla soo heesa hadday rabaan barnaamij maslax mideeye baa meeshii soo istaagay jug waa haynaa soo ma hadalku waa inuusan ku dhaafin meesha inaad fahantid ninka uu wax ka tirsanaya waa maslax mideeye wuxuuna sheegay milyuun maanka inay kala tageen inuu shaki dartiis uga tegay inay isdaayeen ayuu caddaynayaa fidaasha waa daawateen lasoo jarjaray lasoo dhigay barnaamijyada waa daawateen midaada kale haddii aad u malaysaan dadka social media ku jiro asxaabta oo barnaamijyada waxaas isla dhigo oo mataqaanaa isla soo heesa hadday rabaan barnaamijyada la soo dhigo YouTube mataqaanaa kasoo wada shaqeeyo qaarkood YouTuberaha hadday yihiin xataa qasab maaha in mataqaanaa dadka hortooda saaxiib waa lagu yahay dadka hortooda wanaag uu ka dhaxay mataqaanaa dadka uu ka dhaxayn karaa laakiin aniga ka shakhsi ahaan weligii qof saaxiib aan ka dhigtay inaa xumeeyo iskuma dayin mana xumeynin qof aan saaxiib ka dhigtay inaan xumeeyo iskuma dayin mana xumeynin waayahay halkana waxaan ku fiirin doonaa ama ku eegi doonaa marka uu caddaynayo inay kala tageen milyuun maanka wuxuu yidhi baraha bulshada annaga maana la wadaagin mana aana u sheegin laakiin daruuri ayay ila noqotay inaan dadka faaniska ah war maxaa faaniska galay aan u sheegno inaan kala tagnay waaye baan isla daawan doonaa waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiimna ila noqotay inaan ka hadlo horta ilaahay adduunkan wuxuu u weyneeyey oo u ballaariyey in ay dadkiisa ku kan nabad galaan muslim iyo gaal inta uu abuurtayba su-aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd sharmaake iyo milyuun ma kala tageen horta aniga milyuun si sharaf leh aan isu guursanay maantana si sharaf leh ku kala tagnay weliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas aysan soo bixin ka hor aan ayada kala dhamaanay laakiin arrinkeena social media ma keenin haddana daruuri way ila noqotay ayay ila noqotay in aan baraha bulshada la wadaagno oo saaxiibada iyo faaniskana aan la wadaagno ayuu yidhi waanu kala tagnay aniga iyo milyuun maanka muddo ka hor ayaana kala tagnay laakiin daruuri ayay ila noqotay inaan faaniskayga iyo saaxiibaday u sheego inaan naagtaydii kala tagnay waxyaalaha laga xishoodaa jira waxyaalaha berri lagu karbaashi karaa ayaa jira berri maanta markaa rag wax la goosgoosanaysid in aad naagtaadii baa lagaa qaaday oo ninkaa haystaa waxyaala aad looga gubtay ka mid
sharma boy waxaan malaleeyaa uu ku degdegay arrintaas mana qurux badnayn in uu sidaas u dhiga hawsha si kastoo xanuun u dareemaysa xanuunada qaar baa la qarsadaa wallahi xanuunada qaar baa la qarsadaa oo aan bannaanka la keenin qof isku cayrsanaya ama iska difaacaysid oo kale waa meesheeda laakiin qof ama social media kugu cayrsanayn soo hadlin waxba kuu sheegin inaad adiga oo nin afka furatid xoogaa waa laga qurux badanya waa laga qurux badanya hadday qolyihii ishayseen iyo dhalinyaradii idinka dhexaysay kaftanku kugu soo caynayaan waxa weeye ninkan naagtiisii waa loo hayayo gabadha sharafteedii waad ku ciyaartay wiilkaagii umaadan naxin oo wiil qurux badan ayay kuu dhashay maasha allah mulilmaanka adigii ninimadaadii iyo magacaagii waxa weeye uma aadan nixin anigu mucjisay igu noqotay markaan arkay fiidiyoga sharma boy uu kaga sheekeynayo inay kala tageen xaaskiisa weliba uu nin uga shakiyey waxyaala waxaa jira ninka raggaa ka dhinto uu god ka galo xataa haddii qor lagu qabto aysan sheegin waxyaalaha noocaas oo kale ana wallahi waa la iska ilaaliya sharma boy marka ma garan karo caradii baa ka tambadisay waa nin yar waa dareemi karaa ma waxbaa ka khaldamay waxbuu soo cabay ma waxba aadhona wax unbaa khaldamay laakiin meelaha yani dadkan la iskuguma dhiibo qoriga la iskuguma dhiibo xabaddii ushii ay kugu garaaci lahaayeen baa iskugu dhib sharma boy tanna kaa hari mayso weligaa fanaan kasta ahaw magac kasta yeelo waa ninkii naagtiisa loo hayay baa lagu leeyahy gabadhaas waxaan leeyahay walaal wax walba oo ku soo gaaray ama ninkaas dhankiisa kaa soo gaaray xaal iyo xumayn baan uga fadhinaa adiguna xaal qaado anoo ku hadlaya afka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ku leeyahay balyuunimaanka gabar wanaagsan baa tahay hooyo sharaf le baa tahay cimaamad baan kugu tuurnay ha ka soo hadlin barnaamijkan ha ka soo hadlin waa codsi ha soo fariisan kaamirada horteeda sharma waa dhiiqaystay adiguna hala dhiiqaysa waa taladada guud ee ugaaska aad baan idiin salaamayaa barnaamijkan sii sheer garaya saaxiibadin la wadaaga ramadaan kariim